shirka madasha iskaashiga Soomaaliya caalamka oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho ayaa looga hadlayaa qorshayaasha hortaginta howlaha Soomaaliya sida amniga, dhaqaalaha iyo doorashooyinka inay ku dhacaan waqtigooda. shirka ayaa waxaa furay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble iyadoo aaladda internetka ee fogaan raga uga qayb galeen madaxda dowlad goboleedyada halka uu goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. ra'iisul wasaaraha oo shir gudoominayay madasha ayaa xusay in dowladda Soomaaliya ka go'an tahay in doorashada ay ku dhacdo waqtigeeda iyadoo laga ambaqaadayo heshiiskii ay wada gaareen madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah. waxa uu sheegay cid walba oo ka qabta tabasho hanaanka doorashooyinka inuu la fadhiisan doono isla markaana si arrimahaas loo xalliyo uu safarro ku tagi doono toddobaadka soo socda qaar ka mid ah caasimadaha dowlad goboleedyada ka jira dalka. gacmahayga xafiiskayga cid kastoo Soomaali ah oo cabasho ka qabta doorashada iyo habkeeda waa soo dhaweynayaa. hal qof kama weyna Soomaali oo dhan. Soomaaliya shacabkeeda ayaa hal qof ficilkiisa iyo rabitaankiisa Soomaaliya ayaa ka weyn. safarkayga oo hadda ku wajahan sidaan ku heshiinay President Deni inaan ku gaaro Garowe hadduu ilaahay raalli ka noqdo oo aan kala hadlo arrimahaas. sidoo kale aan soo maro Gaalkacyo aan ku xijiyo Dhuusamareeb kadibna President Axmed Madoobe waxaan ku heshiinay soo noqoshadiisa markuu kusoo noqdo Jubbaland Kismaayo inaan toos u aado halka isaga ayaan ugu fadhiyaa. walaalahay danaynaya mustaqbalka madaxweynenimada iyagana waxaan leeyahay albaabkayga uu idin furan yahay. cabashada qabtiina diyaar ayaan u ahay inaan xalliyo laakiin mid xisaabta lagu daro sharciga lagama weyno dastuurka lagama weyno wixii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku heshiiyeenna waa in la tixgeliyaa habraacaasna la raaca. idinkoo mahadsan. shirka oo soconaya muddo hal maalin oo la isku weydaarsaday doodo la xiriira mawduucyadii looga hadlayay ayaa gabagabadiisa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ku qotoma dhammaan qodobadii laga hadlayo qorshayaasha muhiimka ah ee hortaginta dowladdeena. shirku wuxuu taabtay ama si fiican u aqoonsaday horumarka laga gaaray tan iyo shirkan kii ka horeeyay markii la qabtay horumarka laga gaaray taabagelinta arrimaha amniga wixii ka qabsoomay arrimaha dhaqaalaha iyo wixii laga qabtay in cudurkan adduunka ku baahay la yiraahdo COVID-19 ama corona iyo wixii ay dowladda Soomaaliyeed ka qabatay bulshada caalamkuna ku caawisay. shirku wuxuu taabtay oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyiinta halkaasoo lagu sheegay in Soomaaliya ay ka xun tahay in aysan gaarin goolkii ama yoolkii ahaa in ay qabsoonto doorasho qof iyo cod ah sanadkan 2020 iyo 2021. laakiin wuxuu shirku aqoonsaday shirkii wada tashiga heerka qaran uu gaaray heshiis ku saabsan qabashada doorashada 2020-2021 taasoo aanan ahayn doorasho qof iyo cod ah. heshiiskaasoo qabsoomay bishii September 2020 iyo in Soomaaliya iyo saaxiibada caalamkuba ay ballan ku galeen rabaanna inay fuliyaan doorashada qof iyo cod ah 2024-2025. shirkan ayaa muhiim ah Soomaaliya waxaana lagu eegaa waxyaabihii ka qabsoomay qorshayaasha horumarinta Soomaaliya ee saaxiibadeeda ay ka taageerayaan waxaana lagu dejiyaa qorshayaasha kale ee muhiimka ah ee ay soo gudbisay dowladda federaalka. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.